gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta taliyayaasha ciidamada booliska iyo asluubta ciyaartooygii Soomaaliyeed ee hore oo xafladana la fadhiya munaasabadina nagala qayb qaatay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ururada haweenka iyo dhalinyarada ciyaartooyga kooxda kubadda cagta Soomaaliyeed guusha inoo soo hoysay iyo baxda saxaafadda dhamaantiin waa salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh caawa waxaynu wada dabaaldegaynaa inagoo soo dhaweynayna xusaynana guusha ay soo hooyeen kooxda kubadda cagta oo dhalinyaradeenna Soomaaliyeed oo run ahaantii tacab badan galay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta bahda isboortiga guud ahaan laga shaqeeyay aad arkaysaan ciyaar wanaagii ay muujiyeen ciyaarihii kala duwanaa oo dhan aniga mar walba xukuumad ahaan waa la soconay waxaana gaar noogu si qaabilsanayd wasiir Khadiija run ahaantii maalin kasta cid ay la ciyaarayaan goolasho halkay marayaan haddaanan noo suurtagelin inaan daawano iyo halkay u soo gudbeen habeen walba golaha wasiirada iyo way u soo gudbinaysay waa u soo diraysay waa la wada soconay madaxweynaha la socday ra'iisul wasaaraha la socday dhamaantayo in niyadayadu waxay ku maqnayd oo ay la joogtay intii ciyaarayeen xukuumad ahaan sababtuna waxay tahay siyaasadda madaxweynaha oo dhiiri gelinaysa dhalinyarada maadaama boqolkiiba 70 iyo dheeraad ka badan ay da'yarta wadankeenu yahay dhiiri gelinaysa dhalinyarada siyaasadda uu nagu hago xukuumaduna ku shaqeynayso dhiiri gelinaysa isboortiga oo labaduba keenayaan in la isdhex galo in dib ay u soo noolaato shucuurtii Soomaaliyeed waxaan fursad u helay madaxweynuhu igu amray inaan hogaamiyo waftigii ka anba baxay diyaaradda khaaska ah qaatay ciyaartii kama dambaysta ahayd ee finalka Burundi aanu aniga iyo mas'uuliyiin kale qurba joog dhalinyarada bahda isboortiga Soomaaliyeed khubaradeennii ciyaaryahankeennii aqoon-yahankeennii dhammaantood isboortiga ka shaqeynayay oo siyaasadda isboortiga qoray haddana gacanta ku haya cabdi bilaan nala socday sitay baa nala socday faraska ayaa nala socday yani ciyaaryahankii waaweynaa waxaad garan kartaan Mareykan iyo Yurub ka kala yimaadeen siday u weyneynayaan iyo shucuurta keentay waxaan idin sheegayaa ciyaar wanaagii inamadaasi soo bandhigeen markaanu daawanaynay sida la sheegayna 2 gool ay dhaliyeen laakiin garsoorkii ay ula muuqatay inaan maaragtay ay malaab hadii qof ama laba inuu half side uu jiray annagu saanu markii lahayn dacwad maanaan gudbinin oo waxaan la sheekaystay gudoomiyaha oo waniyo goolkaasi gool miyaanu ahayn waa la iga badayaa marka 2 gool iyo 2 ay ahaan lahayd hadii xataa qofka ula muuqday ama labada qof ayna dhicin lahayn dabadna barbardhac baa la noqon lahaa rigoorayaal baa lagu kala badin lahaa maxaa haddaba Soomaalidu waxay tiraa hadal badan haama ma buuxsho maxay nala gudboon waxayna la gudboona hadda soo socda ciyaaro kale oo waaweyn oo ay tahay inay ka qayb galaan marka xukuumad iyo shicib iyo wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta iyo guddida isboortiga dhamaanteed iyo ciyaaryahanka waaweyn oo Soomaaliyeed waxayna la wada gudboon inaynu u diyaar garowno sidii aynu kooxda u dhisi lahayn u garab istaagi lahayn ula shaqeyn lahayn u suurtagelin lahayn inay ciyaaraha soo socda ee 20 ka yar iyo ciyaaraha koobka Afrika ay ka qayb galaan marka haddana ay u diyaar garoobaan ay ka qayb galaan koobka adduunka markii ciyaartii ay dhamaatay horta waxaan idin sheegayaa Burundi waa ogaayeen gudoomiyaha iyo kooxdii joogtay dhamaan dhowrkii ciyaaroodba dalka Burundi shacab weynaha oo dhan wuxuu taageersanaa Soomaaliya iyadoo laga yaabo in Tanzania iyo Uganda iyo ay jaariyeen ama isdhex galaan ama ay bulsho wada yihiin haddana niyadda iyo taageerada garoonka oo dhan uu yahay oo hayay ciyaaryahanka Soomaaliyeed aad bay runtii u weyneed waa abaalaynu wadanka walaalaha nahay ee Burundi oo taageerooyin kalena ay nasiyo ogtihiin iyo iskaashiba ay naga dhaxayso madaxweynaha Burundi waa soo dhaweeyay aad baan ugu hambaliyay guusha ay ka soo hooyeen dhalinyaradeennu kaalinta ay soo gaadheen waxa aan halkan uga mahad celinayaa wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga oo ku guuleysatay qorista siyaasadda dhalinyarada oo meel maray golaha wasiiradu ansixiyay siyaasadda isboortiga oo aanu daah furno soo bandhignay laga shaqeynayo la tashina laga sameeynayo
ujeeddaduna ay tahay xukuumaddani waa xukuumaddii ku shaqaynaysa sharciga iyo siyaasad cad oo dalka lagu hago waxa kaloonu mahad celinayaa siyaasaddaasi markaa waxay suurto gelisay in fursadahani ay la dhiirigeliyo la wada shaqeeyo gobolka banaadir iyo dawladda dhexe iyo dhammaanteen shacabweynahaba dabadeedna aynu soo saarno dhallinyarada aad arkaysaan waxaan aad ugu sii mahad celinayaa guddoomiye cabdiqani oo tacab badan geliyey run ahaantii la joogay bilow ilaa dhammaad imakana aabbaha aynu ku wada ogsoonnahay aynu kaga wada warhayno aynu la shaqaynayno in kaalmaha dambe inagoo taageerayno la shaqaynayno caawinayno wax alla wixii nagala gudboon gacan ka geysanayna ay gaadhaan marka yaynaan kaga hadhin halkaa oo inaan odhanaynoon guul baa la soo hooyey laakiin ay ina hor yaallaan imtixaano iyo dadaallo fara badan haddaan la dadaalin haddaan la wada shaqayn haddaan gacmaha la isqabsan lama gaadhayo meesha maanta ay soo gaadhay ninkii markii ciyaartu dhammaatay nin wariye ah baa ay waraystay wuxuu igu yidhi sidee bay soomaaliya ku soo gaadhay kaalintan waxaa kaloo haddana i weydiiyey sidee baad u sii hanan kartaan ama u sii hayn kartaan in kaalintan iyo kaalmo ka sarreeyo oo kaalinta koowaad aad gaadhaan ama ha ahaato ciyaaraha bariga iyo bartamaha afrika ama ha ahaato ciyaaraha afrika ama ciyaaraha adduunkaba markaa ta imakay noo wada taallay tahay inaynu ka wada shaqaynaa waxa weeyaan ciyaaraha soo socda ee dhici doona sanadkan iyo sannadaha ka dambeeyaba inaynu ilaahay idamkiisa inoo suurtogelido kuna dadaalno innagoo koobka afrika iyo koobka bariga iyo bartamaha afrikaba soo qaadnay inay dhallinyaradaasi inoo soo noqdaan marka ballanteennu taa weeye maanta madaxweynahan la kulmay oo aan uga warramay guusha ay dhallinyaradaas soo hooyeen ciyaartii uga warramay kooxdani waxay noqon doontaa koox tacab badani aynu wada gelinno madaxweynuhu diyaar buu yahay inuu sii dhiirigeliyo waa kooxdii madaxweynaha waa kooxdii xukuumadda waa kooxdii shacabweynaha soomaaliyeed waa kooxdii gobolka banaadir taasaynu ku wada shaqaynaynaa ilaahay idamkiisa iyaynaan waa tii ciyaaraha la odhan jiray barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen guushaa guul ka weyn oo aynu dhallinyarada la shaqaynay inay gaadhaan dhammaanteenna wada gaadhnaa ballan inoo hasoo sidaa ma aha waa mahadsantihiin casho wanaagsan dhallinyarada waxaan leeyahay hambalyo guul baa gaadheen waxaa hesheen fursad dhallinyaradii idinkaydinla midka ahayd ayna helin 30kii sannadood ee burburka iyo laga yaabo ka horba sidaad maanta u hesheen marka idinkuna taa ogaada dawladdiinna iyo shacabkiinna xukuumaddiinna madaxweynihiinna way idinku tashanayaan waa idin berber taagan yihiin gacan buuxdaan oo idin siinaynaa wax kasta oo aad u baahataan oo aad nooga baahataan waa idinla berber taagannahay ilaahay idamkiisa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu casho wanaagsan inoo ahaato